carabta ayaa soo ifbaxay maalmoon ka hor markii dowladda Sacuudi Carabiya ay shaacisay inay xiriir ku jirtay dalka Qatar. Arrintan waxaa kaloo ay sababtay in dowladaha Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ay qaataan go'aanka Sacuudi Carabiya ay xiriir ku jiraan dalka Qatar iyagoo u sabaynayo in dowladda Qatar ay xiriir dhow la leedahay ururka Al-Qaacida. Dr. Maxamed Deeq oo ah aqoonyahan falanqeeya siyaasadda bariga dhexe waxa uu qabaa in dowladaha hadda khilaafka uu ka dhaxeeyay yihiin kuwii ka badbaaday kacdoonada ka dhacay wadamada Carabta 10kii sano ee ugu dambeysay. Waxa uu tusaaleeyay in dowladaha Yurub iyo Mareykanka ay ku faraxsan yihiin go'aamada ay qaateen wadamada qaar ee Carabta. waxaa dhacay dowladahaas waxay ka badbaadeen isbeddello badan oo adduunka ka dhacay ay kamid yihiin isbeddeladii dunida Carabta ee jamhuuriyadaha ay ku sameysmeen Iraq iyo Masar iyo Suuriya iyo Liibiya iyo Algeria iyo Suudaan jamhuuriyadahaas ayay ka badbaadeen afgambiyadii military ee kontameeyadii soo bilowday 60meeyadii Afrika iyo wadamada Carabta aad uga dhacay ka badbaadeen waxay ka badbaadeen dabayshii Yurubta bari dimuqraadiyadii markii Ruushku burburay 91dii dimuqraadiyadda adduunyada ka bilaabatay ee saameysay wadamada Carabtana Algeria oo kale 91dii waa tii doorashada ka dhacday intaan la afgambin quwadaha waaweyn ayaa ugu talagalay inaysan isbedel dhicin xataa isbedel dagaalka sokeeye waa nooc kamid ah isbedelka waa jawaab shucubta ay bixiyaan dagaal sokeeye xataa waa laga hor istaagay yani markii 90meeyadii 80meeyadii Afrika dagaalada sokeeye ka socdeen waa laga xayndaabay mandaqadan waa la xayndaabay isbedelkeeda wuxuu isbedel weyn ku sameynayaa adduunyada dhan oo Mareykanka ugu horeeyo ugu wacan tahay dhaqaalaha iyo xadaarada islaamka ee saldhig meesha waa dowladda Sacuudi Carabiya ayaa joojisay ganacsi kala dhaxeeya dalka Qatar waxa dhammaan balahkii duulimaadyada ka bixi jiray dalka Sacuudiga kuwaas oo tagi jiray dalka Qatar. Arrintan waxay sababtay in dalka Qatar uu suuqyo hor leh ka helo wadamada Iran iyo Turkiga. Sheekh Abdulxay Sheekh Aadan oo ah aqoonyahan bartay daraasadda islaamka ayaa aaminsan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku saxsanaa go'aanka uu ka qaatay wadamada khilaafka u dhaxeeyo. waxaa soo baxday marka arrintu say u dhigan tahay markii la fiiriyo inaanan beec ahayn. Soomaalidu waa dad gob ah oo xor ah sida Carabtu ay ku mahmaado tajuucul hurratu wala ta'kulu thadiyha. xortu Soomaaliyana waxaa lagu yiraahdaa haddii la dhimanaayo dhareerka waa la iska duwaa. Carabiga waxaa kaloo leeyahay idaa tusibka khasaasatun fatajammali haday baahi ku qabato isqurxi mowqif sharafeed marka maanta taaganahay oo ku salaysan xorriyad walaalnimo dad jacayl oo Carabtii wixii dhaxmaray aan ka xunnahay inuu dhaxmaro haddii ay noqoto kaala ila cadaadi walaalkay aan niri asbaab aan u cadaadino nooma muuqato waxaa noo taagan annaga oo ka xun inaad isku dhacdaan inaan dhexdhexaad arrintaasi ka ahaano sidii hore arrintu noo ahayd inay noo ahaato tii waxaa laga yaabaa marka inaan canshuurteeda dhiibno waana ku talagalaynaa inaan dhiibno لأن أدونكم ما أنتم حمرايا من لا يملك قوته لا يملك قراره قفك أن قوت كيساي سنقان كي سماله وحان موجنا مركا إنه قان كان لأنها عنده كرنو ولا ليالو واد مهد سنتين إن مسلم إسكال مايو إسقرب إستاغو هتبدي يعني أقول لي عذرنا عكال أو قرب سوى حق مسلم كلو كله هاي هذا ساعة سوك عشان كرنا سوك عشانه لكن أنا جا أياق قيب كم إذا جركي جا عدادنا يا لأن هذا قدر مركي العدادينايو ودولده هذا لتريناي عدادينايان ayaga ay iscadaadinaya dhamaadka kulankan ay isugu yimaadeen culimada diin madaxda ururada bulshada iyo macallimiin wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Muqdisho waxa laga soo saaray war-saxaafadeed kaas oo lagu amaanayo go'aanka jamhuuriyadda Soomaaliya ee ka qaadatay khilaafka u dhaxeeyo wadamada Carabta وأن البلدان الإسلامية وشعوبها ستكون الخاسرة من هذه التوجه الخطير كما حرصت على عدم الانزلاق وراء التصريحات واتخاذ مواقف متسرعة والتي لا تقوم سوى بتأجيج الاختلاف وتعميق الخلافات. وفي هذه الصدد يثمن المجتمع المدني موقف الحكومة حيال الأزمة الحالية بين الأشقاء وأن يكون دور الصومالي البحث عن المصالحة واستغلال علاقاته الجيدة مع مختلف الأطراف بدل الوقوف مع طرف ضد الآخر.
كما يدرك المجتمع أن العلاقات الخليجية سريعة التغير، ولا يمكن للصومال أن تغامر باتخاذ موقف ضد أحد، لأن هذه الأزمة قد تنتهي في حال نجحت الوساطات الخليجية والعربية